kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega Jubbaland ayaa maanta waxa ay kaga hadleen saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee beeshooda ka oo ay sheegeen in mid ka mid ah beelaha ay wadaag yihiin ay kula tartami doonaan isla mar ahaantaana aanay suurtagal ahayn dadkuna ay kala leeyihiin kuraasta sida ay sheegeen odayaasha iyo waxgaradka waxaana ay fariin u direen madaxweynaha Jubbaland iyo guud ahaanba beelaha Jubbaland oo ay ugu baaqeen in ay soo farageliyaan xaaladahaasi maadaama kuraasta beeluhu la kala leeyahay dadkuna aanay u kala tartami karin waa kuwan waxgaradkaas oo ugu horeeyo nabadoonka guud ee beeshaasi maxamuud Kilaas Aadan oo arimahaasi ka hadlaya caafimaad qabna waxaa mahad iskale reerka shirkan isugu yimid oo dhigtay gobashan quruxda badan waxyaalaha ay tabanayaan inay kaga hadlaan doonaya way mahadsan yihiin iyagana rag iyo haweenba markaan iska soo gaabiyo shirkan ma aha shir dhibaato shir lagu aflagaadaynayo dad ma aha wax shakhsi gooniya lagu taarget garaysanayana ma aha waa wax annaga baahidaanada aan ku gudbinayna wey markaan u soo noqdo reerka in badan buu dul qaadanayay 9 sano maamulkan uu joogay wuu dul qaadanayay shibbu iska ahaa wax haba yaraatee dhib ah oo ka yimid afiya dintoona ma jiraan intaa kadib aad baa naloogu xadgudbay aad baa naloogu xadgudbay xadgudubkaa isaga ah 3 qaybood baan ka tirsanaynaa mid waa maamulka ugu horeeya madaxweynuhu wuu iloobay dadka xuquuqda leh ee xukunkiisa hoos jooga yaan ka midnahay kamaanaan helin waxaan mudnayn maanaan ka helin intaasaan kaga gudbayaa isaga hadda kadibna ana xasuusnaadaan leh intaasaan kaga gudbayaa kulmade waan gaadhsiinay iyagana aad baanu ka sheeganaynaa iyagoo ehelkaanaa oo nala dhashay oo arkaya dulmiga nalagu hayo bayna xasuusan waayeen salaadiintooda nabadoonnadooda aqoon-yahankoodaba ay dhihi waayeen reerka xaggee ku dambeeyey intaa iyadana aan intaa kaga hadha iyagana waxba yaana kusii fogaan qaybta saddexaad waxaan ka sheeganaynaa waxa weeye walaalahana makaahil laba dhalatay baan nahay wax ma kala booli karo waan wada wadaagi karaa tale aan ku kala qaadan karaa iyaguna waxay aad bay noogu xadgudbayaan xadgudubkaasi waxaa ka mid a maqaabul iyo reesacad baa leeyahay waxa jaga ah ee uu leeyahay maqaabul uu leeyahay waxaa haya kulli marka laysku soo duduuba annagu hal mida kuma lihin ilmo makaahil baa haya tolkaana weeye oo lamana xumin inay intaa ka sii badan helaanna waan jecel lahay laakiin inay annaga nagu soo noqdaan oo ay na maran xumeeyaan raalli kama nihin jagooyinka maqaabul leeyahay iyagaa wadahaya nooc kastoo uu noqdaba wixii hadda la rajaynayana iyagiibaa isu soo wada sharaxay kulli taana sax ma aha
waxaan u malaynayaa kuraasta labada ee federaalka mid ka mida baan haynay musharaxiin baan leenahay ha helaan ha waayaan iyaga dhexdooda ninkii hela isaga nasiibkiisu uu siiyo ha qaato laakiin ma yeelayno inna lagula tartamo ama la boobo ama la marin habaabiyo oo annaga nalagu khaldo ma yeelayno mana yeeli doono beshan cabashadeedu haddii ay siday tahay u dhaqangeli weydo oo hadday noqoto Jubbaland iyo hadday noqoto kuumade intaba aan jawaab waafi ah ka weyno ilaa iyo guddiga khilaafaadka ma joojinayno waana wadayna gogashan makaahil hadda waxba kuma weydiisanayno makaahil waa soo kala qanacnay hadday noqoto suldaankii iyo hadday noqoto siyaasiyiintii waxaa u dambeysay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka warqadda ay qoreen ayaa u dambeysay sidaa darteed waxba nooguma laabna sadna iyaga kama sugayno laakiin waxa aan la hadlayno een u sheegayno kursigaas 8 kursi ee maqaabul magaciisa ku soo baxay ee 7 uu makaahil ka haysto halka kursi ee ii soo haray haddaan ahay reer Saclo curadkii ah makaahil hadda waxba kuma weydiisanayo waan ka soo qancay waxaan u sheegahayo waa dawladda Jubbaland ee uu madaxweynaha ka yahay mudane Axmed Maxamed Islaam iyo salaadiinta kuumade iyo guddiga maxaa la dhihi jiray doorashada dadka maya guddiga doorashada dadka aan la hadlahayo waa dadka een ka doonayno tabashadaanada iyo cabashadaanadaas inay tixgeliyaan inay u istaagaan inay meel mariyaan hadday dhici weydo ilaa iyo guddiga khilaafaadka ma dhigayno mana joojinayno waana talagal waan ku talagalnay waxaan leeyahay reer Sacad in badan buu soo samray in badan buu daalanaa in badan buu qatanaa maanta laakiin waan soo taagannahay horeeyo iyo siyaasiyiinta kale ee la talisa ka hooseysa waxaan rabnaa inay saami qaybka markii Soomaaliya la yiraahdo ummaddu waxbay qaybsatay boor 25 Soomaaliya wax ku qaybsatay reebel bay wax ku qaadatay kuumada maarnahay marka kuumada waxa uu qaatay qaybta u leeyahay inaan muxuu ahay qaybtanada aan ka helaan ka rabnaa Axmed Maxamed Islaam qaybta isaga ka aadan ee dawladnimada ee madaxweynenimo baan ka rabnaa isaga waxa weeye waxba ma aanan hadda ka hor ku soo haysanin laakiin maanta aan ka rabnaa inaan muxuu ahay saami qaybka aan ka helaan waan rabnaa waxaan u cabanaynaa oon muxuu ahay codsi u dirsanaynaa la hadlaynaa Axmed Maxamed Islaam guddiga kuumade guddiga doorashada dhammaan ee Jubbaland ma aanan u gudbin weli federaalka ma aanan u gudbin waqtigeeda in lagu kalifo mooyeen inaan u gudbinana ma rabno inaan u gudubno muxuu ahay guddiga khilaafaadka weli nooma gaarin markii aan iyaga wax ka weynan laakiin waan u gudbaynaa iyagaasa waxaan ka rabnaa waxa aan ka cabanayno inay taxgeliyaan oo fiiriyaan kursi baan ka cabanaynaa saami qayb baan ka cabanaynaa waxaan rabnaa kursigaas inaan muxuu ahay aan anagu hadda ka horna soo haynay haddana nalagu dulmi ahayo in badanna dadkii ay kursigu naga dhexeeyay walaaladaanada ahaa aan in badan gobol u soo dhignay ilaa iyo muxuu ahay ninka ugu sarreeya ee suldaanka ah
iyo ilaa iyo ninka ugu hooseeya ee muxuu ahaay oday dhaqameedka ah iyo wasiiro iyo siyaasiyiinba aan in badan ka soo hadalloon dabcan inaan arrintaanada hoos u xallisano annaga oo maqaabula aan arrintaanada hoos u xallisano laakiin ay naga diideen walaaladaana baa waxaa dantu nagu qasabtay inaan wixii aan horey oga taagnayn aan galla maanta oon u gudbino dowladda Jubbaland cabashadaanada waxaa weeye kuraas waxaa jirta 8 kursi ah 8daa kursi reer Sacad hal kursi uu kaga fadhiyaa kuraasta kale ee 7 ana waxaa ku fadhiya makaahil halkii kursi ayuu makaahil markan ayada marada u dhigtay waxaan markan rabnaa oon u sheegaynaa dowladda Jubbaland kursigii asaga ahaa ninna aanan u ogolayn waxaa jirta saami qaybsiga markii la yidhaahdo waxyaabo fara badan baa jira suldaankii baan gobol u dhignay suldaanka goboshaan u dhignay waxay ahayd arrinta kursiga ayaan ooga dhignay 7 goblood buu suldaanku nagaga kacay 7 goblood ayuu nagaga kacay waana suldaankii maqaabul weyn marka ayada waxaan u aragnay suldaanka inuusan tixgelin noo hayn wax tixgelin la dhaho inuusan marnaba noo hayn hadduuna tixgelin waayey walaalahana makaahilka kalena ay arrinkii asagaa nagu qiimayn waayeen waxaan nala gudboonaatay marka ayada dowladda Jubbaland ilaa heer guddiga khilaafaadka doorashooyinka inaan cabashadanada gaadhsiin magacayga iyo magaca gabdhaha reer Sacad waxaan wadnaa tabasho waxaan ka wadnaa dadka ehel noogu xiga ee nahay ilmo amuudaan ee nahay ilmo maqaabul ee la yidhaahdo makaahil midda kale waxaan runtii aan leenahay saami qaybsi qabiil walbana uu ku qaybsado wax isaga uu leeyahay ama 4.5 ah oo saamiyada oo dhaqana oo la leeyahay anaga waxaan qabnaa tabasho weyn waxaan ka qabnaa beesha makaahil baan ka qabnaa waxaan u soo gudbisanaynaa cabashadanada shakhsi kasta oo wax ka qaban kara gabagabadii beesha ayaa ka soo saartay go'aano iyo war-saxaafadeed kulankooda ee ku aadan waxyaabaha sababay xilligan in ay baaqan soo saaraan kulamada noocan oo kale ay ku qabtaan magaalada Kismaayo waxaan ogeysiinhaynaa odayaasha iyo siyaasiyiinta kuumade khaasatan Kismaayo Jubbaland Soomaaliya ujeedo cabasho saami qaybsi cabasho saami qaybsiga beesha maqaabul ee Soomaaliya mudanayaal waxaan idiin soo gudbinhaynaa cabasho ku aadan saami qaybsiga beesha maqaabul ee Soomaaliya taasoon ka qatannahay qaybtii ay lahayd beesha reer Sacad saamiga guud waa 8 xubnood oo 7 ka mid ah ayay makaahil ku fadhiyaan meesha ay hal xubin ay ka hesho beesha reer Sacad waxaa muuqato in halkiina duulaan lagu yahay hadday ahaan lahayd dhaqan iyo siyaasiyiinba si looga wareejiyo gacanta beesha reer Sacad waxaa guud ahaan jira 21 musharax oo maqaabul ah meesha 2 musharax mooyeen 19 kale ee musharax ay u sharaxan yihiin halkii kursi ee aan ku fadhinay haddaan nahay beesha reer Sacad cabashadan waxaan la wadaagaynaa dhaqanka iyo siyaasiyiinta walaaladeenna makaahil iyo suldaanka guud taasoon wax garowshiyo ah aanan ka helin ilaa iyo haddaba waxaan codsanaynaa in odayaasha iyo siyaasiyiinta kuumade ay cabashadanadan ay u wajahaan sida ay tahay
waxaa kale oo xusid mudan looma qaatana ah in maanta boqortooyadii reer sacad uu dood ku jiro halkii kursi ee uga soo aaday awood qaybsiga kuumade Soomaaliya waxaa si guud u soo jeediyey warmurtiyeedkan dhaqanka odayaasha iyo siyaasiyiinta beelweynta reer sacad Kismaayo Jubbaland Soomaaliya